naagihii yaryaraasi si walba waxaad ugu sheegtay kaabay haddana waa kuwa isma badilayaan sidii un bay yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada asxaabtaydii waa mar kale iyo walaalkiin Axmed Xirsi. maanta waxaan soo bandhigi doonaa maanse aad u qurux badan ay tirsa walaashin Kaaba Caydiid iyo asxaabtii ka soo falcelisay. Koor maansada intaanan gelin wiil asxaabta ka mid ah ayaa igu dhahay inta dadka kala raali gali aad is leedahay naftaada ha dulmin. isla hadalkaas oo maalintii maskaxdeeda ka bixila ayaa waxaan la kulmay ereyadan aad ay cajabiyeen weyni dhiirigeliyeen nafteedana wax badan ay u tareen. isla saa darteed waxaan jeclaaday inaan idinka la wadaago ila dhageysta. naf yahay ii faraxsanow furaha qalbigana adkee si fudud iyo kaaga bixin. hadduu farahooga galo qaar baa la fogaanayee ha furin ruuxii kastaba. waxaan laga fiirsan baa hadhow fajac kugu noqdee hadeerto ka foojignow. dantaadoon abid ku foof dambeetada sii fasiro nolosha soo socota fahan. dad baa ku fudaydsadee adoon uba faanahayn u sheeg inaad fiican tahay. isla maansadan iyadoo oolin daqiiqadaba waxaa ka soo celiyay asxaab badan falcelinta ayaan wax ka akhrineynaa. hodan bintu axmed iyadoo waxay soo dhahday maasha allah u sheeg inaad fiican tahay abwaanad keep going. intaas ayaa iga gadan hore u soco abwaanaday. haddii aan u gudubno falceliyaha xiga naasir cabdi isaguna wuxuu dhahay dad baa ku fudaydsadee adoon uba faanahayn u sheeg inaad fiican tahay. intaas ayaa iga gadan. falcelinta xigta oo naga soo gaadhay Mawlid Suleymaan isaguna wuxuu dhahay adoon uba faanahayn u sheeg inaad fiican tahay. intaas ayaa iga gadan. falcelinta xigta waxay naga soo gaadhay Cabdisalaam Yaasiin isaguna wuxuu dhahay naagihii yaryaraasi si walba waxaad ugu sheegtay kaabay haddana waa kuwa isma badilayaan sidii un bay yihiin. maasha allah. saa horeba usoo sheegay falcelinta aad ay u badan tahay. waan ka raali gelinayaa asxaabta aan soo qaadan aragtidooda. sidoo kale waxaa jira rag badan oo gabayaal iyo maanso intaba kusoo jawaabay. sidoo kale aad u mahadsantiin.